ismaayu shirkad ku bilaabo filim cadays ani cid mikrofon ii dhiibtay mala ani nimcaheebi ah isoo dalbatay markii aan taga mikrofoonka aan qabtay filimka anigaa furay anigaana soo xiray ma dhimana geeri kuma ogi way noo shahay qofka bini'aadanka in la xaqiro qalad waa baabajey horta mid aan kuu sheego ada haddaad rabin inaad sheegtid qaabkii filim aad ugu soo biirtay iyo qaabkii aad ku timid anaa maanta kuu sheegaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم لما أصحابتك حرنا نمعيه إذا أمضي كلا تبع أمضي صومالية ملو باجوكتين وحايد ليه معنا ونكسن وحاجر برنامج أنا كهلن أون كجاب سناي أون ربين إن أم بكهلو محايلي برنامج كسوحو لحي عكو ينكلي هذا بابجي أنا كسببت أن وجهد برنامج كاسنه waxay ahayd in marka hore tama aysan cadeen labadaas qof Axmed Saadaq qofka uu haysto iyo qofka uu ka hadlaayo midna ma cadeen Axmed Saadaq sidaas ma uusan magacaabin marka barnaamijka hadii xataa uu magacaabi lahaay horta xaqiiqdii ani maba ka soo hadlinba dhaxdooda maxaa yeelay iyaga laba nin rag ah oo isla shaqeeyo inkastoo Axmed Saadaq anaga agteena qaali uu ku yahay uu nin weyn yahay baabajey uu ku weyn yahay وكم معقول سينه معناها سكوش حلي حتى إذا شقة سوق قلين لكن هذا ضد وضع شقية وايه أو شقة وذاك مركب ما دام الله بدي صاحبة هاين اسكول عين إن أحمد صادق ودعونا يو إن برنامج كإلى رنتي سأنقرنا ما هن وحن كهل كرنا أما أن مركز أنا قد أحكي لك لكن وحي بيلل يجي وطالع كلي أنا دمر أهان وحي أنا قد أحكي لها مصلحة أكلية أي أهان لهاد لكن أنت بدح قلين بو وحان أركي بابجي أو فيديو صوت دوبي أو هلايو أو له أنا قفصاص ميلين أنا كان ميلين أنا كان ميلين ضدك إساق بونبونينايو أنا قمحي يسوي حوايين أنا قمحي إله دوايين هدي أنا عن هاي هدي قفك الوركاس وكسعدو هدي شيء كذا نوع كلا تتهاي انتبه مركا waxay ahaataba horta baabajey marka hore hadalkiisu wuu saxsanaa meel fiican uu maray si fiican uu waday laakiin baabajey hadalka gadaal wuxuu uga dheelay videogan baabajey ugu dan leeyahay inuu arkaan rabaa hadalka gadaal wuxuu uga dheelay uu ka qasay wuxuu yiri maxaa la dhahay aniga cid soo saartay horta ma jirto cid garab isisana ma lahan cid saas yeeshana ma lahan isagoo saas dhahay wuxuu rabaa had oo iyagaba ka dhaxaysaabo taas ana wax iga qosay male laakiin baabajey magacaygu soo qaaday wuxuu yiri aniga shirkadda aan Ismaayu tagayay waxaan ku tagay nimcaheebe soo dalbatay igeysay shirkadda macnaha igeysay xataa ma aha soo dalbatay horta baabajeeyo midaan ku sheegayaa ani Axmed Saadaq aad wax isku haysteen horta ma ogi oo laba nin oo saaxiibo ahaatiin balse wixii laga sheegay maanta adigu way cadaatay xaqiiq way cadaatay waxay ku cadaatayna adigaaba afkaaga ka qiray maxaa yeelay waxa tiri nimcaheeba isoo dalbatay aniga markaan ku soo dalbanay adiga filim ma turjumaysay codkaaga ma magaalada galay ma meel baan kugu arkay codkaaga ma aan ka helay oo aan dhahay baabajey ha nool keeno ha nala shaqeeyo maan dhahay walba meesha waa soo fariisatay wax waa sheegaysaay ma runta sheegtid oo wuxuu kul ilaahay kul ogyahay sheegtid dadka bini'aadanka maxaa u xaqiraysaane ismaayu shirkad ku bilaabo filim cadays ani cid mikrofon ii dhiibtay mala ani nimcaheebi ah isoo dalbatay markii aan taga mikrofoonka aan qabtay filimka anigaa furay anigaana soo xiray ma dhimana geeri kuma ogi way noo shahay qofka bini'aadanka in la xaqiro qalad waa baabajey horta mid aan kuu sheego ada haddaad rabin inaad sheegtid qaabkii filim aad ugu soo biirtay iyo qaabkii aad ku timid anaa maanta kuu sheegaya ila magacayga adaa soo qaadeen يا اللي جالس طبعا أنا كل شيء نجيب هذا نجيب ما دمانين ونولي هاي نفوي كجرتا صالح دير ونولي هاي وكل شقيا أحمد صادق نوابنيك عاد هي ستان بهدرت إسكدا مال إستصولي أوكي بابجي فيلم ترجمت أدي وحكتمت أنا بالحوبة دجن أو حقيقة كان نجيب هذا نجيب بيلو ننتي إن دير ومرقاتي وقبصة يا الله نجيب هذا نجيب إيه كان أنا جانا مركز وحقي إحنا أستان أو هيد أكسس مركز
fiilada diishka aan rabay guriga hoos dabaq u ahaa in la iigu soo talaalo kor iigu keeno okay waxaan dhahay najiiba qof ii xiraan rabaa fiiladan najiiba wuxuu dhahay wiilan kuu keenaa baabajeel dhahay shactira badan oo saan oo kan oo xiro fiilooyinka sidii la iigu kaa keenay sidii la iigu kaa baray markii la ii kaa baray waxaa tiri aniga waxaan rabaa nimco inaan fiilo turjumo waxaan ku dhahay waayahaye baabajeeyo aniga markii aan tago xamarweyne ana ayaantaan fiilo turjumo waa iska dhaafay because waa ka nasanaya maalmahaas fiilo turjumo muddo sanad ah markii aan xamarweyne tago oon shaqo dib u bilaabo ballan ilaahay waaye waa ku soo qabanayaa waana ku geynayaa shaqada aan ku dhahay waayahaye ay tiri muddo ka soo wareegatay ismaayo shirkad la dhahayaa la furay qolo film sidee la dhahayo shirkadaas wax loogu turjumayo marka waxaana mas'uulka ahaa Saalax Dheere walaalkay Saalax Dheere shirkadda markaas gudoomiye ka ahaa okay aniga shirkadii aan ka shaqeynaayo ma turjuma ahaa waa halay waana turjumay bas markaas aan ku dhahay Saalax wiilan keenayaa oo rabo in uu shaqeysto because aan mar walba qofkii idho Finland raba inaan turjumo waan caawiyaa waan garab istaagaa waxaan jeclahay qofka markaas wuxuu isaga hami u haayo in uu ka jiba keeno ama uu ka gungaaro qofka markaas bili aadanka ah waa inaad garab ku siisaa wixii markaas adiga aad dhaantid okay dadka meesha ugu sarsareeyaan ku jirabo baabajee balan aan ka qaaday balantii aan ka qaaday ma beenoobi karto waan wax baabajee lambarkiisa ahay baabajee imo waan dhahay shaqadii waan ku helay okay shaqadii markaan u helay aan u geeyay shirkadda Ismaayo Saalax Dheere Yacko iyadoo saas loo wada buuxo aan geeyay waxaan dhahay baabajee wiilkan waa kana baabajee la dhahaa ما شاء الله هرت الاسم حقيره فهم كيس يسوي في حياة بابجي فهم كيس ألو في حياة لكن قفل بو أو وح برنايو مركو وح عصب يهاي مركو جارز قصب واي والرجلنا يا جرب على سينا يا وحليها محل هاي استوسي هذا الكوالو الصحة وحكي قلدم والو الصحة أنت سبحان كنا هاي ضد إسلا شقيه أو ولا له وأنا اللي سكوسة عدا جرب أنا اللي سكوسيا أحمد صادق جرب وكسين كرا وكساعدين كرا وكوحين كرا okay tii Axmed Saadaq ba ka soo gudub aday anigina Axmed heebaha oo dhiman oo xay oo nool ay xaqirtay haddana dambi dush iga saarto xatri ayada isoo dalbatay sida adiga inaad markaas astaan u shaqeynayso soo kaleete ama aad nin magac leh oo la yaqaano ma ahaan baabajee adaa shaqo raadinay aad markaas shaqada raadinaysi aniga aad i weydiisanay aniga waan kugu caawiyay garabaan ku siiyay waan ku keenay meeshii taas waxa kale sii dheer ma ribin aniga waxyaabahaas inaan inta ka sheego laakiin maadaama adiga xalay aad tiri nimcaheebe isoo dalbatay maadaama aad tiri aan ka jawaabaya dalabkaas ka jawaabaane marka Saalax Dheere ma dhiman social media ma ku dhex jiro laakiin maalmaha kamid waa la keeni doonaa Saalax Dheere aan waxaan ku dhahay Saalaxow abuu adaa meeshan gudoomiye ka ah wiilkan waa u jeedaa annaga camal ma ahan maskiin waaye lixdiis lixaad ma dhameystirno marka dadka tareedinka ah waxaa sharci ah 3 bilood in ay lacag la'aan ku tababartaan marka waxaan dhahay ninkan 3 bilood iyo bil iyo lacag la'aan ku tababaran karo maxaa yeelay waxa waaye qof aan caadi ahayn waaye mootoraacu u baahan yahay bajaaj raacu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay marka wiilkan waxaa sameynaysiin iyo wiilka kale oo film sidii iska lahaa Cabbaas ma dhiman wuu nool yahay isna waxaan ku dhahay wiilkaneeti ma ka baxsan karo dadkaas kale inta camal ma aha lama dul qaadan karo qof lixdiis lixaad dhameystiran tahay ma at least ugu yaraan waa inaad siisaan wax uu baabuur ku raaco sida sharciga ah film turjumida marka dadka waxaa la siinaya $10 inta waa weyn markii laga reebo okay isaga sidaas baabajay waxa loogu bilaabay $5 oo lacaga beenta way hadho okay meesha maanta ka dhigi lahay nimcaheebe shaqadaas igeysay oo saas wax u dhaceen baabajay maanta xaq uma lahayn in inta la soo istaagtid nimcaheebe ay soo dalbatay abo qofka markii la soo dalbanayo waa qof shirkad u shaqeeyo markaasoo kale inta faanbarood u shaqeeya ama shirkad kale u shaqeeyo oo codkiisa la arkay oo magaalada ku jiro waay ma ahan adi first markii ugu horeysay ama mikrofon qabatid waaybo marka ugu horeysay mikrofon qabatid si adi aan ku soo dalbanaa ii sheeg mise ani shirkadaan lahaa shirkadaas aniga gadaal waa kala wareegay sax waay laakiin ani shirkad ma lahayn adigoo kaliya ku caawinaya okay caawinaadii aan ku caawinaya haddaad maanta aniga igu abaal guday in aad ahdid nimcaheeba isoo dalbatay wax weyn ma aha laakiin dadka waxaa wanaagsan in aad runta u sheegtid markii aad hor taagan tahay social media ama bulshada aad wax u sheegaysid runta inaad la wadaagtida kuwa fiican maxaa yeelay sumcadda iyo sharafta iyo dadnimadaba taas ayay ku jirtaa qofka bili aadanka sidiisa banaanba waxaa looga baahan yahay
markii qofkan walaalka waa la isaacidaa ani waa la isaaciday markaan fil turjumo galay luujiya isaaciday fuaada isaaciday dad badana isaaciday dad badana garab isiyo luujiya igeyse ma inkiro luujiya igeyse ani laba bilood iga horeysa idoo laba bilood iga horeysa ee haddana igeyse sababay u aad maanta magacaan aan leeyahay ilaahay kasako luuji maxamed cali iska leh iyo fuaad alfagi oo fuaad igu dhiirgeliyay mikrofoonka nag igeysan hooyo ma dhalna oo maleena haddana mikrofoon markii la qabto qasab laazim waa la cabsanaya waxba dhiin maxaa dhahaa maskaxda waxaan ahay astaan iyo waxaan ahay hebelow astaan babjee inaa faan inta la soo fariisatid horta aad iyo aad looga fiicnaa marka ugu horeyso marka labaadna waxaan kuu sheegayaa ma taqaanaa ana xaqiraada ay xaqirtay waaba i xaqirtay barbaleen ma lahane laakiin xaqiiqda dhabta aniga hadda dadku u sheegay wixii laga sheegayna way soo bixeen wallahi wax badan laga sheegay wax badan laga sheegay wixii laga sheegay oo cadcadoo ene maanta waa la imaaday ee ani waxaan dhihi lahaa axmed saadaqna video kale soo duuba caawa ina inta isku xishootaan dad waaweyn tihiin wixii dhacay labadiina iyo meelaha ka wada shaqaysiin waa isku dhowdihiin dad asxaabatiin walaalaatiin ina idinka ilaahay idinku duwo inta israadsataan ama ay isdhax gashaan maxaa la dhahaayay wiilashan kale inta oo idin la shaqeeyo ee idin dhex galaan ina idinka wixii hoos u xalistiin allaha idinku duwo marka ugu horeyso marka labaad haddii adi qalad aad gashay waajib waxa kugu ah qofka qaladka aad ka gashay haddii adi xataa uu ku imaan waayo ama dadka aad dhehaysid fiyuus ugu raadsanayaan horta aniga ka nimca ahaan haddii fiyuus aa kugu raadsanaya isla habeenku axmed saadaq soo hadlay aa reaction ka soo bixin lahaa aan soo qaadan lahay warka laakiin sababta usoo qaadan waaya waxay tahay ma barabinba anil dagaal laba qof oo walaale ama asxaab ama meel ka wada shaqeeyo oo rag in aan dhexgal maribin xumaana ma faafiyo ani wanaaga oo kaliya aan jeclahay in aan faafiyo haddii heshiisiintiina ay noqon lahayd ani qayb waaba ka qaadan lahaa because hadda hadalka saan hadduu kusii socdo waxaan rabay inaa telefoon inta aad kugu soo diro axmed saadaqna waa isla joognaba aan la hadlaan dhaho axmed saadaq oo bis axmed saadaq ha hadlin xataa dadkii oo dhahayaan ku jira ani mar dambe dubabjee soo hadla xataa adi ha hadlin okay wanaaga in laga fiiriyo bahasha idinka sumcad idin tahay idinka sharaf idin tahay marka ugu horeyso marka labaad waxaan kuu sheegayaa babjee xaqiraada dadka bini'aadanka aa xaqiraysid jooji qaasatan taas aniga maanta ay ugu xaqirtay oo weliba magaceyga aad soo qaaday waxaa kaaga ficnaan lahayd sida aad u tiri anaa markeyga hore taalanti lahaa oo banaanka aali inaa u dhahdida kaaga ficnaan lahayd anigaa isa soo saaray anaa shirkad tagay anigaa saan dhahay inaa dhahdida ficnaan lahayd inaa isoo qaadatid oo dhahdid nimcaheeba isoo dalbatay adoo og inaa aniga shaqada ku geeyay baabijey horta xaq ma ahayn taas wallaahi xaq ma ahayn way kaa halawday wixii lagaa sheegayaana soo baxay marka videogan hadda ani waxaan kugu soo duubayaa adiga waxay tahay in aan dadweynaha runta u sheego waxaysan ogeen aan u sheego in shaqada markino aniga aan ku geeyay inaan u sheego waay maadaama aad magaceyga soo qaaday magaceyga haddaa soo qaadi lahayd wallaahi oo bilaah oo tallahi ma soo hadli lahayn ani mana soo jawaabi lahayn xataa laakiin si daciifnimo oo yasme ay ku jirtaa intaa magaceyga usoo qaadataa waxaa tiri nimcaheebaa isoo dalbatay سواء بابجي مركب قصاد البناء شركة موسيقيين هذه معاه وحماتها قف شركة وهلا أو مقع له عن أو ليك لما شركة قف كان قصاد شركة كان والله ما تها ما إهنا طبعا waxaan ku qabtay hadda kugu sheeganay man rabin ba inaan kugu sheegto laakiin adaa iga keenay oo waxa iga keentay adiga ay xaqireen habeedeen xataa nimca igeysay laakiin inaad dhahdid ma nimca isoo dalbatay inaad dhahdid taas adi qaladay kugu ahayd taasaan uga baxayaa jawaabtaadaasaan videogan ani maanta usoo duubay tan adiga iyo axmed saadaqne hade idinkaani ma rage weliba axmed saadaq ani intaa celin karo waa celinaa because axmed saadaq waxaan ku ogahay qof degan oon dagaalamin ixtiraam badan boqor oo xataa dadka aana ku xadgudbin axmed saadaq isagoo lagu gardaroonayo uu dadka saas u fiiriyo ka tagaa axmed saadaq ninkii meel walba isku raacayseen waay meel walbana kugu wadaay waa baabajey maanta inaad dadkaaga iyo baxdaada le kusoo noqotid ما أهان حاسد ماذا أديك وجرت أول جا شيء جاي بناك لا إنا التكتيد هاد أدي إلى أدي قف مقع كابري هاي ماله قف سمعت كابري هاي ماله ولا جا هوري ولا جا مقع وياي ولا جا وحيسين هاي أنا قدنا أنا حقروسا أنا قدنا أنا قلت تمنوسا قلد موي أنا قدنا قلت تمتد أنا قدنا حقرتد تاس قلدك وقطعي أنا مرضو مقعيها سوق قادم بليس أم بليس مقعيها سوق قادم نمعا إدل بطي نمعا شقي جيسينا ده إسكرافه نمعا إدل بطي دنبها يسودين وكبريها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.